barnaamij lagu jabsaday malaayiin telefoon. Ku dhawaad 7 milyan oo ah telefoonada gacanta ee adeegsada barnaamijka Android ayaa waxaa saameeyay barnaamij lagu jabsanayo kaas oo wax u dhimaya macluumaadka dadka wata telefoonadaasi. barnaamijkan oo si qarsoodi ah telefoonada Android-ka ugu shuba adeegyo iyo xayeysiino isla markaana basaasad baraha internetka ee qofku booqdo ayaa waxaa bishiiba ay dadka samaystay ka faa'iidaan lacag dhan ilaa $300,000. inta badan telefoonada uu saameeyay barnaamijkan jabsiga ah ayaa waxaa laga leeyahay dalka Shiinaha. shirkadda Google ee iska leh Android ayaa sheegtay in ay wanaajinayso ammaanka telefoonada gacanta si ay wax uga qabato barnaamijka khatarta ah. barnaamijkiina waa naga intaa waa aniga Cali Cabdiqaalaqa oo idinkaga tagaya intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.